بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبساق بوتار اسماعيل وحانا هاي أرضي جوغا بنغلش وحانا ها قدوميه أفراد إجهالي بنتلان بنغلش waxbarashada dii hoose iyo tii dhexe iyo tii saraba waxaan ku soo qaatay magaalada Boosaaso dabcan heerarka waxbarasho muddo waxaan ku soo jiray aan oran karo waa 20 sano laga soo bilaabo dugsi Quraan lagu xijiyo dugsi dhexe dugsi hoose dugsi dhexe secondary jaamacad heer koowaad ayaan ka dhameeyay dhanka International University 2017 maadada aan dhameeyay waxa weeye Electrical and Telecommunication Engineering dhacdooyinka BD runtii aad u farabadan yihiin mar walba waxa la kulmaysaa wax ka farxiya wax aad ka yaabto waxa weeye wax walba la kulmaysaa laakiin haddii aan ka fiiriyo dhanka waxyaalihii aan la yaabay kow de culture-ka markaad timaadid wadan adiga ka duwan oo culture ahaan ka duwan waxyaalo badan baa kala kulmaysaa oo aan kooy laba la oranin waxaan xasuustaa sheekooyinkii ugu dambeeyay waxaan ka xasuustaa nin saaxiibkay oo wadanka yimid oo maalintiisii ugu horeysay wuxuu u baahday magaalada ama suuqa kadibna sida la socotid waxa jirta baasha ragshada la yiraahdo ee la raaco in badan waa laga sheekeeyaa waayo wax mar walba ku soo noqonaya waxa weeye dadka ragshada wadana dad inta badan luqadda Ingiriiska garanaya ma aha ragshada dadka garanaya haddaan u tilmaamo waa baaskiil saddex lugood leh ninkii uu cusbaa oo saaxiibkay ahaa waxaan saarnay ragshadii haddaan u saarnay oo suuqii aan tagnay waxa weeye ninkii ragshada waday wuxuu weydiiyay telefoon numberkiisa inuu siiyo ninkii ragshada waday wuxuu weydiisay inuu telefoon numberkiisa siiyo si uu markuu u baahdo ragshada uu soo waco marka telefoonkii waa uu ka qortay maalintii dambe ragshadii ugu baahdo wuxuu yiri ragshadii ninkii ragshada wacay la hadal oo u sheeg xaafadaas aan joognaa dheh marka waxaan ninka ragshadaas barnaamijkan uu kuma ogeyn Bangladesh marka sheekadaas waa jirtaa waa sheeko waxa weeye aad iyo aad lolaya waxa weeye qosol leh sheekooyin kale oo asxaabta ay ku sheegaan waxa kamid ah dad waxa weeye lacagta ragshada ay siinayaan oo kale inaan inta badan ay saxi karin oo kale wadankii way ka yimaadeen marka lacag la isu soo celinayo baaqi uma baran haday ku shan bixiyaan oo billahi tawfiiq ki wadankan jajab iyo baaqi lagu soo ceshaa leedahay hatta sadaqaad baxsanaysa oday arkay 10 taga u dhibaysa shan baa kala soo noqonaysa baaqi weey marka sheeko aad u farabadan yahay laakiin inta ugu muhiimsan waxa oran karaa waa marka ugu horeysa qacda hore oo BD aad timaado hal cash laba cash marka joogto wixii ku qabsada taas very important runtii talada la siiyay ardayda markay timaado arday badan markay timaado wadanka waan is aragnaa waxa weeye talooyin iyo waxyaalo badan waan siiyaa haddii ay individual noqoto ama haddii ay noqoto in meel isugu yeero oo xafad loo qabto intaba waxa weeye waan bixinaa marka talada ugu muhiimsan ardaydaas waxa kamid ah waxyaalaha caqabadaha ah oo runtii anigu aan u haysan inay caqabad tahay waxa kamid ah luqadda kamid ah wadankan Bangladesh shantii qof oo Bangaaliya afar qof ayaa wax ku hadla luqadda Ingiriiska afar qof oo luqadda Ingiriiska ku hadla marka talada aan siinay waxa weeye in barnaamijka luqadda muhiimka ah oo BD la rabo inaad markaad imaanaysid aad iska dhistid waa luqadda Ingiriiska arday badan iyagoo caqabad ay ka haysto luqadda Ingiriiska ayay wax u leexiyaan inay caqabad ka haysto luqadda Bangaaliga taasina waxa weeye sax ma aha luqadda Ingiriiska haday dhisan tahay oo aysan ceeb lahayn
waxaad awoodi kartaa inaad wadankii aad wax walba ka qabsatid hadday macallimiin noqoto hadday arday noqoto hadday bannaanka noqoto luqadda labaad oo dadka dukaamada ku hadlaan dee waa af carabiga carabi macluum baa iska jirta marka laftigeedu waa important marka luqaddaas ingiriiska ayaan talahaan u siin lahaa inay ku dadaalaan waa soo dhaweynaya buugagtu way kala saameyn badan yihiin buugna waxa weeye saameyntiisu waxay ku eg tahay maalmo ama saacado ama bilo buugna inta noloshaada ka dhiman oo dhan waxaa leedahay buuggaas run buu sheegay marka haddaan soo qabto buug la yidhaahdo khawaariq alla shucuuriya ama khawaariq alla shucuur uu qoray nin ciraaqi oo la yidhaahdo cali alwardi buuggaas waxaa la qoray 1951 madbacaddiisii labaadna markuu dhintay 1969 baa la soo daawacay madaxweyne hadda waxa weeye dhaka weynaa loo bixiyey sida la socotid haddaan dhaka weyn ahaan lahaa dabcan waxyaalaha ugu muhiimsan wax ka bedeli lahaa waxay ahayd adeegyada personalka oo qofku markuu dowlad ku dhex nool yahay waxaa jirta adeegyo personal uu leeyahay ay ka mid tahay caafimaad waxbarasho amni inuu helo marka haddii individualka waxa weeye wixiisa uu hagaagsamo dadka kale waxa weeye crowd people-ka ah waxoodu buu wanaagsanaanaya marka waxay la tahay qof walba hadduu amniga ku qanco heli karo iyo waxbarasho iyo caafimaad waxay la tahay taasi waa talaabo fiican bay la tahay waxay la tahay cid walba nafteeda way taqaanaa saddex rey haddaa tirina waa soo yaraysay laakiin haddii aan idhaahdo dhabtaa saddex ere ku qeex kow waxaanoo lahaa waxaan ku qeexi karaa inaan ahay innovative dabcan faaniga ma aha laakiin innovative ama creative taas waa so important tan labaad waxaan ku qeexi karaa inaan ahay responsible ama responsibility-ga very important way ereyga saddexaad waxa weeye erey qof walba laga rabo oo qurbahan jooga oo ah waxa weeye patience ama dulqaad marka saddex erey waan ku soo koobi lahaa dabcan haddaan ku yaraa kubadda ciyaaraa iga aamini maysid waxa weeye laakiin waa daawashada kubadda aad baan jeclahay ilaa hadda haddii aanan ciyaarin in daawashadeedu ay noqoto waxaan aad u jeclahay mar walba waxyaala kale oo hobbiga way iska jirjiraan hobbi waxaa noqon karaa wax akhriska noqon karaa team Barcelona taageera aniga kaligeena uguma horeeyo dad badan baa nolosha waxay ka dhigeen buug wax ka qoray waxa ka mid ah Allah naxariis Cabdulaaziz Fahmed waxa ka mid ah ninkii la oran jiray Hitler marka labada nin buugta qoreen markii la fiiriyo waxa moodaa inay hal erey isaga mid yihiin oo halgan Hitlerna wuxuu yiri buugiis wuxuu halgan madaxweyne Cabdulaaziz Yuusufna wuxuu ahaa halgan iyo hagadaam marka aniga waxay la tahay nimankaasaan daba ordi lahaa halgankaasaan qori lahaa talab fiican day tahay cidda aad ka heshaa waa cid aad kugu dhow ha ugu horeeyaan waalidkaaga hooyay aabe macallinkaaga saaxiibkaaga qaliga waxa weeye hadday noqoto talo xun waxay la tahay qofku talada ugu xun naftiisu ka helaa adigoo cid kale aan eedeyn marka talada ugu fiican aan helo waxay inaan BD imaado oo aan waxbarasho u aado anigu xilliga Itoobiya joogay oo waxyaalo kale ku fikirayay iyo uma garatay inaan dhanka Asia aado
waxa weeye wax soo barto talada ugu xumeed waxa oran karaa talada ugu xumeed waxa oran karaa waa sababa xilli aan joogay nin kamid ah mas'uuliyiinta Soomaalida oo wax barashada ku shaqo leh ayaan u tagay waxaan ku yiri waxaan u baahanahay scholarship iyo jaamacad u baahanahay marka inuu scholarship wax iska daayay oo tahriib oo Yurub gal marka su'aal kale ma weydiin waxay ka fiicnaaday inuu scholarship hadda ma hayno si kale oo lugooyo u sameyn karay baa jirtay laakiin waa talo xun baa oran kara dabcan qof de aqlina ma qaadan karo taas oo kale لو مستقبل كان جعلان كنا إن شاء الله دي لهنا الإدايو مقالة دي كل شيء ومقدشة رانتي ميلا بدن بان بوقدي oo wadanka kamid ah magaalo fara badan Bangaalada wadiga iska arkay waxa weeye hadii ismisarada la xiro waxay kaleeyeen waxa israacisan oo cuntadii meesha seexan lahayd wax laga yaabo inay kafaalad qaadaan waxyaalaha ku fiican yihiin bay kamid tahay oo tigidhka baska inaad iska bixiso waxaan xusi karaa marka magaalada xeebeed la yiraahdo Kusbasaar Kusbasaar waa magaalo xeeba xeebahana de waxa jeceshahay waxa weeye Soomaalidu xeebo fara badan bay leeyihiin oo dabaasha loo tagaa marka magaaladaas markii la yiraahdo xeebta iyo dabaasha magaalada laftigeeda cimiladeeda labadaba waa laba aad u fiican marka Kusbasaar baan jecelahay inaan ku soo noqdo نو سؤال هذا في عن سؤال شانا إن بدن بسوي إن الفيديو برتاني ما قاعد يقول هذا بيبيحين إذا بيجي متقن بوتان باللي يقارنا بوتان ما قاعد اللي يبيحي معها وما قاعد أباه يقول لي هاي ما قاعد عصمت الله بيحي محن جلالنا ما قاعد يقول هرينا لسه موضوع عبد الرزاق وسأل لي يرى عبد الرزاق الله وياه